وعنو wanaagsan daawada meel kasta oo aad ka joogto daafaha caalamka ee dunida fadlan ku soo dhawow barnaamijka falaqaynta siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo wacd ku maray inuu sii kordhin doono duqeymaha ka socda marinka Gaza maxaa uu madaxweyne Biden salaamka ugu sheegay dhigiisa ra'iisul wasaare Netanyahu maxaa sababay in colaadda dagaalka maalinta xigta ay ku sii korodho marinka Gaza intee ayuu leeg yahay khasaaraha ka dhashay dhismayaasha ku burburaya marinka Gaza iyo qodobo kale oo aan barnaamijkaas uga hadli doono fadlan ku soo dhawow mar kale barnaamijka falaqaynta siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa wacd ku maray Israa'iil in ay sii wadayso duqeymaha ay uga jawaabayso gantaalaha looga soo ridayo Gaza xilli dagaalka Gaza uu sii galay maalinkii toddobaad saraakiisha caafimaadka Falastiin waxa ay sheegeen duqeymaha ay diyaaradaha Israa'iil ay subaxnimadan saakay ka fuliyeen Gaza in ay ku dileen ugu yaraan 3 qof kooxaha iska caabinta ee Falastiin gantaalada ay ku soo rideen Tel Aviv waxa ay sababeen in shacabka magaaladaasi ay gantaalada meelaha gabaadka ah ka galaan beesha caalamkana waxa ay ku baaqday in la joojiyo isku dhacyadan sii xoogeysanaya talaadadina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu taleefanka kula hadlay Netanyahu iyo madaxweyne Mahmoud Abbas waxa uuna u sheegay walaaca uu ka qabo xiisadda ka sii aloosan halkaas maanta oo Axad ah waxa la filayaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay arrintaasi kulan ka yeeshaan saraakiisha caafimaadka Falastiin waxa ay sheegeen tan iyo Isniintii markii isku dhacyada bilowdeen ugu yaraan 148 qof in Gaza lagu dilay Israa'iiliyiintana waxa ay sheegeen in dagaalkaasi looga dilay 10 qof oo ay 2 caruur ah ku jiraan Israa'iil waxa kale oo ay sheegtay dadka lagu dilay Gaza in ay ka mid yihiin 10 maleeshiyaadka Falastiin ka mid ah halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintuna sheegeen dadka Gaza lagu dilay 41 ka mid ah inay caruur yihiin Netanyahu telefishinka fariin ka gudbiyay waxa uu sheegay weerarka in ay sii wadayaan ilaa laga xaqiijiyo wax kasta oo suuro gelinaya in la yareeyo waxyeelada dadka rayidka ah soo gaarta cidda iska horyimaadkani socda oo sabab ah annagu maahin ee waxaan nahay kuwa isdifaacaya ayuu yiri haddaba waxaan qodobka labaad ku eegi doonaa maxaa sababay in colaadda ay sii korodho maalinka ka dambeeya laga soo bilaabo maalinnimadii Sabtida ahayd 10 qof oo hal qoys ka wada tirsanaa oo ku sugnaa xero qaxooti ah oo ku taala Gaza ayaa ku dhintay duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil geysteen qoyskan dhanba waxa ka badbaaday wiil yar oo lagu magacaabo Umar al-Hati oo 5 jir ah balse waxa duqeynta kaga geeriyooday hooyadii 4 walaalo ay ahaayeen habaryartii iyo 4 ilmood ee habaryartii dhashay ilmaha yar aabihii Maxamed al-Hati xilligaasi guriga kuma uusan sugnayn halkaas wax gantaal ah ma uusan oolin mana jirin wax dhibaato ah oo ka jiray caruur iyo ilmo yar iyo dumar oo kaliya ayaana ku sugnaa maxay tahay sababta gantaalkan loola eegtay loona laynaya caruurta maxaa ay galabsadeen ayuu yiri mar uu u waramayay wakaaladda wararka ee Reuters dhakhtarka Umar Dabiibayay waxa uu yiri xaaladiisu way adag tahay lafta bowdada ah ayaa jaban jirkiisa oo dhan dhaawacyo ayaa soo gaaray laakiin Ilaahay mahadii daryeel loo fidiyay kadib hadda xaaladiisu way degan tahay militariga Israa'iil waxa ay sheegeen kooxaha iska caabinta 278 gantaal oo ay ka soo ganeen Gaza in ay ku dhaceen magaalooyinka koonfurta Israa'iil gantaaladaasi intooda badanna waxa ka hortagay hanaanka difaaca gantaalada ee Israa'iil gantaal ku dhacay wadada Ramaad oo ka tirsan xaafad ka mid ah xaafadaha Tel Aviv waxa ku dhintay hal nin xilli firirka gantaalkaasi uu u galay gurigiisa haddaba intee ayuu leeg yahay khasaaraha ka dhashay dhismayaasha ku burburay marinka Gaza diyaaradaha Israa'iil ayaa sabtidii duqeeyay dhismaha Gaza Tower oo xafiis u ahaa warbaahinno kala duwan oo ay ka mid yihiin Al Jazeera iyo AP